diinteenna ku doorsan mayno muraad yar waxaynu isku haynaa Soomaaliya iyo kuwa la xaqlinaya waa siyaasad hayaanka geedugu horu u soconaya dawacyada dabadeena ka yeedhayana dib weegimay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam anigoo ku hadlaya magaca xisbiga mucaaradka ee waxaan halkan bulshada iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ugu hambalyeynaya sanadka cusub ee 2026 ee inoo curtay waxaan ilaahay aynu ka baryeynaa inuu inooga dhigo sanad bashbash iyo barwaaqo mid ku xardhanaada xasuusteena اللهم أهله لنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام سنة كي تجي لبضة كونية شنية لبعتنكو وحو أهامد دعدوين كلا دوان كرهبي حسوستين أو كوة طبعا إيا كوة توغن طبعا يقضي سنة كان وحي جمهورية سوماليلاند وأدلكين هويو aqoonsatay dunida dalkii ugu horeeyay dalka Israa'iil taasoo ahayd talaabo weyn oo aynu hore u qaadnay maadaama aynu muddo dheer ahayn qaran madax bannaan aqoonsina sugayay isla sanadka waxayna soo maray dhibaatooyin ay ugu weynayd dhacdadii ka dhacday magaalada Boorame taasoo aanu uga baruur diiqayno dadkii ku waxyeeloobay kuwii dhintayna mar labaad aanu u ducaynayno sanadkan cusub wuxuu inooga baahan yahay isku duubni iyo iskaashi waa sanadkii aynu dhigi lahayn dhinac waxa dhexdeena yaala waa sanadkan waxaynu kala shaqaynaynaa xukuumadda وهجامية مدحوين عبد الرحمن عرو سيدي أنه هيل الهين دلال بدن أوينا أقون صدا وسنة كي مدن ماذا إيا أقون سرهادينتا جمهورية الصوماليلاند ودال مدح بنان منهن مامل قبولات منهن قوني وقوسطو waxaynu nahay dal madax bannaan oo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa dal madax bannaan waxaynu nahay dal ilaahay ku gargaaray nabadgelyo maamul dawladnimo dunidana aan culays ku hayn ee wanaag iyo horumar iyo iskaashi ku soo kordhiyay manhin dad u joojinaya kuwa ku taageeraya Soomaaliya oo qaran fashilmay isbixin kari waayay iyadoo adduunka wuxuu adduun hayay oo dhan u geliyay oo nabadooda ay ilaaliyaan ciidamo ka tirsan xoogagga Afrika iyo kuwa qaramada midoobayba ah kuwa ugu gargaaraya qaranka noocaas ah ee garabka ku siinaya inama niyad jabin doonaan horena inoomay niyad jabin maantana inay niyad jabin maayaan qoraalada iyo bayaanada ay soo saarayaan urur goboleedada kala duwan ee inaga dhanka ah inagama hor joogsanayaan hilinkii aynu haynay iyo higsigii horumarka dalkeena hooyo waxaynu leenahay alqaafilatu tasiiru walkilaabu taniix hayaanka geedugu horu u soconaya dawacyada dabadeena ka yeedhayana dib weegimayno Soomaaliya iyo dalalka la xaqlinaya ee xaqeena duudsiyaya iskuma hayno diin waxaynu nahay dad muslimiina waxaynu nahay dad sunni ah waxaynu nahay dalka labaad ee dunida caalamkooda uu ku xarran yahay kelimatu tawxiid ayaynu nahay diinteenna ku doorsan mayno muraad yar waxaynu isku haynaa
Soomaaliya iyo kuwa la xaqlinaya waa siyaasad maaha diin. wax inoo diidayaa ma jiro inaynu waxay aynu siyaasadda isku afgaranno ee xuquuqdeena suga ee xuquuqdeena garwaaqsada inuu gacan saar yeelano ma jiro. siyaasaddu waa dano ayay salka ku haysaa. halganno badan baynu soo maray. waxaan bogaadinayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland adkaysigii iyo sabirkii ay kaga soo gudbeen 34 sanadood baynu aqoonsi doonaynay oo aynaan marna dib eegin. waqti ka dheeroo hore ayaynu halgan ku soo jiray oo aynu diidnay dulmi iyo tacaddi. Soomaaliland waxay ahayd dal madax bannaan oo uu xuluf la noqday ama gumaystay dal gaari. Soomaaliyana waxay dal gaara oo uu gumaystay Talyaanigu. si xor baynu wax isugu darsan. si xor baynu xorriyadeena iyo gobonnimadeena ula soo noqonay. afti baynu u qaadnay. waynu isku tashanay. waxay muujinaysaa waxa soo dhamin inuu hami iyo higsi inaynu lahay. kaasaynu maantana ka mid dhalinaynaa. waxaan rumaysanahay in Soomaaliland dalal badan aqoonsan doonaan. maantana waxaynu leenahay war yaa labeeyo liibaanay. yaa labeeyo liibaanay baynu leenahay. dunida waynu baryaynaa. waa xodxodanaynaa. nin waliba dunida halkuu inoo joogsadaynu u joogsanaynaa. cid waliba intay inoo jirsato baynu u jirsanaynaa. waxaynu nahay dad dunida tacab ku leh. dalal badan oo gobonnimadeena ka soo horjeeda ayaynu dalalkooda wax ka dhisnay oo maalmo adag u hiilinay. waynu la garami doonaa. xaqa ay ka tashigeena cidna uga biqi mayno. horena ugamaynan biqin, horena umaynaan ruxmin, maantana ruxmi mayno. ragga aynu isayno inaynu isnaqaano oo isbaranay baan anigu moodayay. laakiin waxa ii caddaatay inaynaan is aqoon. inaanay ina baran ayaa ii caddaatay. waxaynu nahay bulsho goba oo ciddii galladu gashana u abaalgudda. ciddii gef kula kacdana ka argoosata. wuxuu yidhi abwaankeenni weynaa Qaasim waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaalle. midigtayda iyo bidixdaydu waa laba mataanoode midi waa martidii soora iyo maata daadihiis. midina waa midiya xiraya iyo maangadkoo kale. abidkayba miisaan ima saari karo nin imaleeyaa buu yidhi. waxaynu nahay dad calool wanaagsan, gobonnimo leh, wanaagga yaqaan. waxaynu nahay dad cadho badan marka la duudsiyo. waa dhaqamada ummadaha gobta ay leeyihiin. ummadaha gobtaahi muslim iyo gaalba dhaqanka weylayeen way ku faanaan. ninkii carabka ahaa la oran jiray Cantara bin Shidaad ee abwaanka ahaa ayaa isagoo dhaqanka mid la mid ah ku faanaya waxa ku jirta suugaanta sabca almucallaqaadka tuu ku leeyahay athni calaya bima calimti fa innani samxun mukhalaqati idha lam udlami وإذا ما ظلمت فإن ظلمي باصل مر مذاقته كطعم الغم. igu ammaan dhaqanka fiican aad igu taqaano ee inaan akhlaaq iyo dabeecad iyo dhaqan wanaagsan leeyahay gobonnimo ah. haddaan lay dulmiyin, haddii laygu gabood falana gabood falkayga murya meera iyo waabeeyaa lagala kulmaa ayuu lahaa. waxaan ku ururinayaa dowladda Israa'iil waa u mahadnaqaynaa. waxaan ugu baaqayaa bulshada caalamka inay Soomaaliland aqoonsadaan. xaqayaga garwaaqsadaan. waxaanu qabsanay ay garwaaqsadaan. wanaaggayaga ay qiraan. waxaanu dunida ka doonaynaa inaanay lugta inoo qaban qaran guul daraystay oo isbixin kari waayey oo noloshiisa maarayn kari waayey. raggaynu saysanaa waa kuwa.
waxaan halkan si gaar ah u bogaadinayaa bulshada reer Puntland oo dareen fiican ka muujiyay aqoonsigii Soomaaliland heshay aad iyo aad baad u mahadsantihiin baad u mahadsantihiin baan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحدة يودا شركة قيسكا قواديكسكا حوارها سر له إنترنت كتلسون فيبر كحوتشي جناحسكا إنترنت حوارها سر له أو أنكلوجين شركة التلسون وحي عصريين كوجو سميسي إنترنت كفيبر كجوريها هي جناحسكا با سيادو سوق الشطو فيبر كتلسون بوخا حرنت كوجو دو أم بكتل البواب سيد كتلسون.com سيدو كل واحد جراعي كرتالم بركاحي ديج 121 أفرجيس تلسون فيبر وإنترنت كوجو حوارها سرية طلكة